kulankani oo ay ka soo qayb galeen waalidiin carruurtooda qaba xanuunka autismka iyo khubaro dhanka caafimaadka oo arrintaasi khibrad u leh ayaa waxaa kulankan lagu qabtay xarunta ururka Isuroon waxaana kulankan uu daba socday kulan hore loogu qabtay magaalada Burnsville ee gobolka Minnesota ururka Isuroon iyo ururka African Immigrant Center oo iskaashanaya ayaa taageero u raadinaya waalidiinta Soomaaliyeed ee carruurtooda qaba autismka sababtoo ah waalidiinta waxa ay ku mashquulsan yihiin 24 saac carruurtooda taasi oo waxyeello u geysan karta waalidiinta qudhooda sidaasi waxa TV-ga caalamiga ah ee Universal u sheegtay Fartuun Weli oo ah madaxa ururka Isuroon kulanka maanta wuxuu ahaa in kii labaadan qabanay oo waalidiinta haysata ilmaha in jiradan autismka ay ku dhactay bishii horaan kulanay marka shirkan waxaa taxano waxa ka soo qayb galay waalidiinka kala socota xaafadaha St. Paul iyo Decorah County la dhaho iyo waxa ka soo qayb galeen khubaro ku takhasustay jirooyinka ilmaha ku dhaca iyo jirada dhimirka ku dhacdo waxa kaloo ka soo qayb galay qowmiyadaha isku tagay ee Somali Daycare Association kala dhaho iyo waalidiin badan oo ka kala timid degmooyinka magaalada Minnesota hadafkiisana waxa weyn in la nasiyo waalidiinta ilmaha xanuunsan haysata oo ilmaha autistic ah haysata sababtoo tahay sida aan ognahay ama sida waalidiintu noo sheegeen waalidiintaas ma nastaan mana hoydaan mana harsadaan mashruucan wuxuu rabaa in waalidiinta lala shaqeeyo si ay u helaan in lacag ama support ay u helaan si ay dad qof ay u hire gareystaan ama qof ama ehelkooda ama qof kala aado saacado oo ka duwan saacadaha already dawladda ay siiso ama hadduu noqon lahaa social security-ga saacadaha laga siiyo ama hadday noqon lahayd waxaanay PCA-ga dhahayaan lacag ka duwan si loo siiyo si hooyada ama aabuhu ay waqti saacadaha u helaan ay ku nastaan ay dhakhtar u tagaan ay xoogaa break ku qaataan sababtoo tahay 24 saac waalidiintii ilmihi mashquul ku yihiin iyaga caafimaadkooda hoos u dhacay waxaan go'aan ku gaarnay inaan arrintaas hore loogu gudbo oo hadee waana isticmaashani kaarana marsiteen meeshiin un bay idinku celinaysa wax faa'iido oo haysatiin mala wax hore u socdana male marka waxaa lagu heshiiyey in hore loo socdo waalidiin badanaa meesha timid oo iyaguna dhaheen yani dhibaato inay jirto waan ognahay laakiin teamkan Isuroon iyo community-ga hadda isku timid ma tihiin dadna garab istaagayo oo bari kamaal aan naga tegaynin waxaan ku heshiinay inaanan meelnaan u soconin oo rabna in aan waalidiinta la shaqeyno laakiin gaashaankii lagu dagaal tagi lahaa inay waalidiintihiin haday waalidiintu ay leeyihiin waana la isticmaalaya aynan rabin inay dagaalka dhinac ka galaan wax soconaya aysan jirin marka si fiican aan ku kala tagna maanta Kamaaludiin Xasan oo ku magac dheer Kamaal Dacas oo ka socday shirkadda Isk Inc oo la shaqeysa qoysaska carruurtooda ka xanuunsan yihiin ayaa sheegay in dadkani ay yihiin kuwa dayacan oo u baahan gargaar degdeg ah ugu faraxsanahay maanta inaan ka soo qayb galo shirkan ay soo qaban qaabiyeen ururada bulshada Soomaaliyeed sida Isuroon iyo Fartuun Weli madax ka tahay iyo ururka African Immigrant Services Mustafa uu gudoomiyaha ka yahay kuwaasoo maanta waalidiin carruur ka xanuunsan yihiin khaasatan cudurka autismka isugu yeeray halkan si ay u wacyigeliyaan oo gana caawiyaan inay la baadi goobaan waxyaabaha ay maaragtay xaq u leeyihiin dhibaato badan baa runtii arrintaas magaalada ka jirta carruur badan oo Soomaali ah ayuu cudurkan saameeyay cudurka kalaba oo iska dayacan oo dad badan oo runtii la shaqeeya ama xaqooda u raadiya aan jirin tusaale ahaan waxaan ka warqabaa magaaladan inay gobolka Minnesota ku nool yihiin 4,000 oo qof oo Soomaaliyeed oo dhagoolayaal ah 4,000 oo qof oo dhagoolayaal ah gobolka Minnesota ku nool baa la yiraahdo Soomaali ah dadkaas wax ka warqabo ma jiro wax u doodo ma jiro wax xuquuqdooda iyo adeegyada ay dalku ay ku leeyihiin ama loo ogol yahay u raadiyo ma jiro marka hay'adahan muxuu ahaa bulshada u shaqeeya community organizationska waa inay muxuu ahaa dadkaas ay howlahooda iyo wixii advocacy qaban karaan ay qabtaan ganacsatada Soomaaliyeedna waa inay ka shaqeeyaan dadkaas sidii adeega ay maaragtay xaq u leeyihiin loo gaarsiin lahaa marka howlahaas maanta meesha isugu nimid in waalidiinta la wacyigeliyo iyo bulshadaba walaa qaabka ugu wanaagsan waxa weeye anaga jaaliyad ahaan inaan dadka ka warqabno waxaad moodaa dadkan in ay baylaha yihiin aad u dayacan yihiin
dadkii meesha isugu yimid hooyooyin baa u badnaa raggii lama hayo aabba lama hayo bulshadii kaleetana wax ehel iyo qaraabo oo dadkan caawinaya runtii uu iska yaryahay in horta laga warqabo qoyskii ilmo xanuunsan haysto in laga warqabo wixii lagu caawin karo in lagu caawiyo oo ay bulshada ka warqabto waxyaabaha aan runtii aad u dhibsadan ka naxay waxaa ka mid ah in carruurtaas noocaasi xanuunsan meelihii ay xaqa u lahaayeen bulshadoodu ay isugu imanaysay sidii dugsiyadii quraanka iyo meelihii jaalkeerada in laga cayiriyo loo diido oo arrintaas maaragtay midabta koor laga samaynayo oo ilmihii bulshadooda laga dhex saarayo arrintaas waxay la tahay in dib loo eego bulshadu ay ka wada hadasho dugsi quraan oo cayriyay canug quraan u soo doonta runtii waa mas'alo la yaab leh weeye in dadkan laga warqabo qof walba wuxuu ku caawin karo uu ku caawiyo dhanka kale waalidiinta Soomaaliyeed oo iyagu carruurtooda qaba autismka ayaa ka sheekeeyay dhibaatada haysata anta waxaan halkan isugu nimid inaan ka hadalno in dhibaatada haysata waalidiinta Soomaaliyeed ee carruurta autismka qabta dadka qaar waxay yiraahdaan carruur baa xanuunsanaysa laakiin waa abuurta Ilaahay carruurta waxaa jira waalidiin badan oo luqadii garanaynin ama inta badan waa hooyooyinka oo hooyada dhib ku haysato aniga lafteeda kamida anu hooyo mihi laakiin alxamdulillah carruurteedii hooyadood baan wada joognaa inankaygana waa he's getting way 100 much better boqolkiiba boqol sidii hore wuu dhaamaa marka waxaan isku dayaynaa maanta anigu aan Suroon community rabaan kala shaqeeyo sidii hooyooyinka Soomaaliyeed ee dhibaataysan ee carruurtoodii ay ka bukaan ama abuurta Ilaahay in aabbihi la joogin ama aan luqadiiba garanay xitaa aabbihi haduu la joogo aabbihi laftiisa aan luqad garanayn sideen carruurteena u caawin karnaa sideen ugu heli karnaa meel carruurtii lagu caawiyo inta badan waxa laga doodaa maxaa autismka keenay laakiin imika waxaan doonaynaa inaan ka hadalno oo maanta isugu nimid inta bogta sidee wax loogu qaban karaa sidee hooyadii lagu caawin karaa maxaynu u qaban karnaa ilmahan sidee loo kala saari karaa inaan waalidkii barno autismku wuxuu yahay horta marka mukulata waalidiinta ay ka faa'iideysan karaan programka wallahi waalidiinta ilaa imika intaan helnay boqolkiiba boqol way ka faa'iideysanayaan waalidiinta dhibka ugu badan ee haysta waxa weeyaan resource la'aan resource ama meel ay wax ka resource of Soomaaliya hadaan u dhigan nacam meel ay aqoontii ama akhbaartii ay ka heli karayaan ayaa waalidiinta aad iyo aad uga maqan ta aanu doonayno inaanu siino oo waalidiinta ay naga faa'iideystaana waa inta community-gan Suroon gabadh in Fortune muddo badan bay u soo shaqeynaysaa community-ga imikana waxaan doonaynaa ay u soo xirxirtay aan la shaqeynayo oo doonayno waalid walba inaan la shaqeeyo si aan waalidka iyo carruurta Soomaaliyeed aan wax ugu qaban lahayn waalidka dhibaatada uu ka bixi karaa wuu weynaaday laakiin carruurtan yar mustaqbalkooda waa geedka baxaya haddaan geedka hadda la toosin بريتو وقلوا عنيا